waa helidda fikrad kadibna dabaqidda fikraddaas. fikradaada waxay u dhigantaa balaayiin lacag ah. laba nin oo saaxiibo ah ayaa sugayay taxi kadibna wuu ka soo daahay. daahitaankaas ayaa keenay fikradda dhalashada shirkadda Uber oo ah shirkadaha ugu caansan maanta caalamka dhinaca gaadiidka dadka qaado. waxaan filayaa inta badan dadku in ay yaqaanaan Uber markaad meel u socoto magaalada aad ku nooshahay adigoo gurigaada joogo in aad moobilka ka dalbato gaari kadibna guriga kuu soo hor istaago. intii aad wadada gacanta u haatin lahayd taxi baca wareeganayaana madaxa kuu geli lahaayeen adigoo gurigaada joogo ayaa dalban. inta aanan gelin sida ay ku bilaabatay aan sheegno waxa ay tahay Uber waa shirkad wadamo badan ka shaqayso dhalatayna 2008 ama fikradeedu ay imaaday 2008. fikradeedana waxaa keenay laba nin oo saaxiibo ah oo lagu kala magacaabo Travis Kalanick iyo Garrett Camp. waxaa lagu tilmaamaa shirkadda ugu koritaanka badan 10 sano u dambeysay caalamka oo dhan. shirkadaha ugu koritaanka badan maanta 600 magaalo ayay ka shaqaysaa Uber 65 dawladood. waana number ay macquul tahay in uu kor u kaco daqiiqadan aan joogno maadaama ay shirkaddu ku socoto caqliyad ah isballaarin iyo koritaan joogto ah. 2019 applicationka Uber ee taxiga laga dalbado ama gaariga laga dalbado waxaa isticmaalayay 100 milyan oo qof. waxaa hubaal ah in tiradu maanta intaas ka badan tahay. waxayna ku shaqaysaa qaab cajiib ah oo ah in ayna lahayn gawaarida u shaqeeyo ee ay qofka gaarigiisa shakhsiga ah ku shaqaysiinayaan in gaarigaada ay u adeegsadaan taxi kadib heshiis dabcan dhex marayo qofka gaariga leh iyo Uber. qisada sida ay ku bilaabatay Uber aasaasayaasha Uber Garrett Camp iyo Travis Kalanick inta ayna unkin Uber waxay soo mareen tijaabooyin badan sida in ay shirkado yaryar oo ay lahaayeen dhinaca tiknoolajiyadana ka shaqayso ay lacag badan ku iibiyeen. waxay ahaayeen rag hanti haysto kana qayb galo shirar waaweyn sida aan arki doono laakiin ma ayna ogeyn in balaayiin lacag ah sugayso kana imaan doonto taxi ka soo daahay. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay nimankan maadaama ay lacag haystaan sidee taxi u raaci ha degdegin wax yar waan ogaan doonaa sababta. inta badan ikhtiraacadka daahka qaadida samaynta shay wuxuu imaadaa kadib mushkilad u baahan xallin. inay mushkilad ku soo wajahdo aad xal u raadiso xalkaas uu noqdo wax dadku ay ka faa'iidaan. waa kuwa carabta dhaho alxaajatu ummul ikhtirac baahidu waa hooyada samaynta shay. 2008 waxay ku sugnaayeen labada nin Paris Faransiiska ayagoo ka qayb galaya shir technology. haddaba maadaama ay safar ku imaadeen Paris gawaaridoodii dabcan waxay uga soo tageen Mareykan. mid waa Mareykan midka kalena waa Kanadiyaan. haddaba waxay ku qasbanaayeen in ay taxi raacaan laakiin taxigii ayaa ka soo daahay. 2008 sida maanta xaalku yahay dabcan ma ahayn in mobilka laga dalban karo gawaarida dadka qaado. wax badan ayay sugayeen taxigaas. waxaa ku soo dhacday fikrad ah maan samayno wax isku xiro shirkadaha takaasida iyo dadka kadibna qofku uu ka dalban karo mobilkiisa asoo gurigiisa joogo. waxaa xusid mudan in waqtigaas ay shirkadda Apple bilowday baahinta mobilada taabashada ee applicationka lagu isticmaali karo taasoo ah in mobilkuba isu bedelay computer in adeegyo badan oo computerka lagu qaban jiray lagu isticmaali karo mobilka. fikraddaas waxay isu bedeshay in ay isku xiraan dad caadi ah oo gawaaridooda wato in darawalku uu mobilkiisa ku degsado applicationka wax sharaaka u egna la galo Uber taasoo ah in qofka caadiga ah markuu mobilkiisa furo oo maapka ka arki karo gawaarida ku xiran Uber ee ka agdhow. applicationka markuu furo inuu ka arki karo gawaarida ka agdhow deegaanka uu ku sugan yahay kadibna uu dalban karo applicationka wuxuuna ku xiran yahay dabcan GPS-ka. fikraddu waxay u baahan tahay dabcan in waaqic laga dhigo in la nooleeyo. waxayna qaadatay ilaa 2009 in ay dhaqan gasho si hordhaca. waxayna ku bilaabeen 3 gaari kaliya ay ku bilaabeen. maanta nus milyan gaari ka badan ayaa u shaqeysa Uber laakiin waxay ku bilaabeen 3 gaari. markii ay Paris kala soo laabteen fikradda Uber oo ay San Francisco Mareykanka ku soo laabteen ayay jilbaha u dhigeen sidii loo hirgelin lahaa fikraddaas. waxayna gateen domain name magaciisu yahay ubercab.com oo website
waa cuquul 24 saac shaqaynayso waxay rabaan dhisidda imbaraatooriyad weyn oo gaadiidka ka shaqayso markii laga hadlayo bilaabashada Uber ee dhabta ah waxaa lagu tilmaamay 2010kii in si rasmi ah loogu dhawaaqay waana markii ay saddexdaas gaari aan soo sheegnay ku bilaabeen sahlanaanta adeegsiga applicationka Uber ayaa ka dhigay mid degdeg u faafo in keliya aad ku dalban karto gaari ku imaado haddaba markii la arkay ama shirkadaha wax maal gashada markay arkeen in shirkadan ay hawl ku socoto ay tahay shirkad guuleysatay waxaa bilowday maalgashi in shirkado badan ay maal gashadaan lacagta lagu maal gashaday waxay gaartay 41 bilyan oo dollar lacag aad u badan maalgashigaas waa in dadkaas wax maal gashaday inay ayaguna wax faa'iidayaan lacag faa'iidayaan طبعا markii shirkadda la soo dhigay suuqyada saamiyada caalamiga laakiin Uber waxa soo wajahay weerar adag oo uga imaanayo shirkadaha takaasida caadiga maadaama ay suuq la'aan dhigtay shirkado badan dadku intii ay sugi lahaayeen taxi boorkana ku sii dhici lahaa ayagoo gurigooda jooga oo qofku kabihiisa xiranaya ayuu dalban kadibna asoo gurigiisa jooga ayuu u soo hor istaagay marka dadku waxay ka leexdeen takaasida waxay isticmaalaan Uber waxaana batay buuqa iyo dacwada ka dhanka ah keenayna in wadamo badan oo ay Uber gashay laga soo cayriyo arrinku wuxuu gaaray in Uber ay heshiis la gasho khabiir lagu magacaabo David Plouffe oo ah khabiir istiraatiijiyadeed lana soo shaqay Obama si uu afkaar ugu soo beeriyo uguna dejiyo khidada kala duwan saamaynta Uber wadamo badan oo Carab iyo Afrikaan tusaale ahaan ayay gaartay Uber dhulkana la jartay shirkado badan oo dhinaca takaasida ka shaqeeyo maalin aan fogeyn sababtay ahaataba waxaan raacay taxi Dooxa Qatar waxaa waday taxiga muwaadin Kenyaatiya wuxuu igu yiri niyow Uber ayaa suuqa ka saartay takaasida caadiga ee Karwa meel walba Uber ayaa wareegayso dadku inta badan ayaga ay raacaan 2014kii ayay Uber soo gashay suuqa Qatar wadankan Qatar 2016 Uber waxaa laga mamnuucay in ay ka shaqeyso London Ingiriiska waa laga mamnuucay kadib dacwada badatay waxaana u shaqeynayay 40,000 oo darawal laakiin dib ayaa loo soo celiyay loona siiyay rukhsada shaqeynta kadib dagaal dheer sidoo kale 2013 Uber waxay ku faaftay wadamo badan oo Aasiyaana sida Shiinaha wadanka ugu dadka badan caalamka taasoo ah in malaayiin qof ay adeegsan doonaan Travis oo ah labada nin ee aasaasay mid kamid ah wuxuu xooga saaray in shirkadu marka hore ayna fiirinin faa'iidada ay faa'iideyso muhiimadu tahay in ay faafto caalamka oo dhan ayaan ku faafaynaa caalamka oo dhan ayaan galaynaa waan faafaynaa kadibna waxaan ku fikiraynaa sidii aan u goran lahayn balaayiinta lacagta waana sida dhacday heer arrinku gaaray in uu furo adeeg lagu magacaabo Uber Moto wadamo badan oo Aasiyaan ah waana kiraynta mootooyinka maadaama wadamadaas Aasiyaanka inta badan laga isticmaalo mootooyinka waa caqliyad cajiib ah in uu u fikiro sidaas in uu ka faa'iideysto qaab walba oo la isugu gudbi karo waxaan islaahay hadduu tagi lahaa baadiyaha dalkii in uu la wareegi lahaa dameeraha iyo awraha lagu dhaamiyo kadibna uu ku qori lahaa Uber dhan 2018 Travis wuxuu galay liiska Forbes ee ragga ugu qanisan caalamka kadib guushaas iyo dadaalkaas dheer 2019 Uber waxay la soo wareegtay oo ay shirkadeeda ku soo dartay Careem oo ah shirkad u shaqeyso sida Uber u shaqeyso kale isku qaab ay u shaqeeyaan haddaba si ayna suuqa uga saarin Careem bay bagateenbo lacag gaartay 3.1 bilyan oo dollar Uber maanta caalamka ayay ku faaftay waxayna gashay inta badan magaalooyinka caalamka dhibaato haday ku soo wajahdo waxa macquul ah in fikradii aad ku xalin lahayd dhasho qariiradyo badan oo lacag ah fikradu waa muhiim waliga hadayalsan hadaad fikrad hayso ha u maleyn wax sahlan waa muhiim mawduuceena aan maanta Uber uga hadlaynay intaan ay ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh